ChatGPT waa nooc luqadeed oo ku saleysan AI sirdoon macmal ah oo ay samaysay OpenAI oo awood u leh inay soo saaraan qoraal u eg bini'aadan oo ku saleysan micnaha guud iyo sheeko hore. ChatGPT waxay u taagan tahay ama laga soo gaabiyay sheeko curiye beddelo hore loo tarbiyeeyay. ChatGPT oo la bilaabay November 30 sanadkii 2022 taasi oo u sahlaysa isticmaalayaasha inay hagaajiyaan oo ay jihayaan wada sheekaysi dhereerka loo doonayo, qaabka, heerka faahfaahsan iyo luqadda, dareen-celinta iyo jawaabaha loo yaqaan farsamada degdegga ah ayaa loo tixgelinayaa marxalad kasta oo wada hadal ah. Sida micnaha guud waa luqad barnaamijyeed heer sare ah, ujeed guudna leh. Janaayo 2023 waxay noqotay wixii markaasi codsiga software-ka ugu dhaqaalaha badan ee macaamiisha taariikhda, iyadoo helay in ka badan 100 milyan isticmaalayaal, waxayna gacan ka geysteen qiimeynta OpenAI gaaraysa ilaa 29 milyan. Bilo gudaheeda, Google iyo Meta waxay dardar geliyeen horumarinta aaladahooda tartanka ah. ChatGPT waa tiknoolajiyad cajiib ah oo awood u leh inay ka caawiso dadka adduunka oo dhan inay isku xidhaan, bartaan oo ay horumariyaan. Si kastaba ha ahaatee, halista tiknoolajiyadan ayaa laga heli karin dalal ay ka mid tahay Soomaaliya, halkaas oo wax weyn ka beddeli karto nolosha dadka sida ay aaminsan yihiin dadka isticmaala ChatGPT. Sanad kadib, waxaa lagu dhawaaqay in Soomaaliya ay fursad u hesho in loo fasaxo inay isticmaalaan aaladda ChatGPT si sharci ah. Waa macquul inay isticmaalayeen, laakiin hab aan si cad ama si shirkad u fasaxda loo isticmaalin.